ninkii ugu caansanaa ganacsatada daraagiska ee adduunka. Su'aasheedu waxay tahay horey ma u maqashay Abu Xubayl? Abu Xubayl wuxuu ahaa nin maskax badan, musiibo ah, nin waalay dhammaan noocyada booliiska. Ninkan dawlado ayuu waalay. Soo dhaweyso cabitaankaaga, kafeygaaga ama xitaa shaahaaga. Assalaamu calaykum, waxaan ahay Cabdicasiis Mahad. Qisadeena maanta waa ganacsadihii daraagiska ee ugu weynaa wadamada Khaliijka. Daroogadu waa sun dilaa ah. Adduunkana wadamo waxaa jira qofka lagu arko qoorta laga jaro. Maxaa yeelay qofka ka ganacsanaya wuxuu go'aansaday inuu bulshada dhan sumeeyo oo laayo. Adduunkana waxaa jira ganacsadayaal waaweyn oo daraagiska ka ganacsada. Waxaana ka hadlaynaa kii ugu weynaa uguna maskaxda badnaa raggaas. Abu Xubayl waa nin Kuwaiti ah, Kuwait ayuuna ku noolaa. Xilligii sagaashamaadkii waxa uu waalay dhammaan booliiska Kuwait. Saaxiibayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan, share gareydaan, page-kana aad follow dhahdaan. Page-ka follow dhah saaxiibayaal. Muddo dhowr bilood ah waxaan dhaafi laanahay 130,000. Bilaa caleeg, muuqaalka inta daawatay iska bixin. Xitaa 40,000 gaarsiiya. Muuqaalka inaad like saartana ha hilmaamin. waa codsi ee amar ma ahan. Booliiska Kuwait way ogaayeen ninkan inay masiibo ku duugan tahay, ninkan inuu daraagiska ka ganacsado. Laakiin way awoodi waayeen inay ka soo saaraan wax cadaymo ah. Maxaa yeelay shax maskax ah ayuu dheelayay ninkan. Mar walba waa la soo qabanayaa, gurigiisa ayaa la baarayaa, wax daraagis ahna laguma arkayo. Ninkan wuxuu ahaa madaxa ganacsiga daraagiska, laakiin wuxuu lahaa customer badan oo ka caawiya ganacsigiisa, kuwa wadanka la jooga iyo kuwa wadamo kala joogaba. Ninkan wuxuu lahaa ilaalo, dad ilaaliya gurigiisa inta uu dhow gurigiisa hareerihiisa oo dhan. Haddii ay arkaan qof aysan garanayna horey ayaaba looga soo sheegaya oo difaac ayuu sii galaya. Haddii ay tuhumaan boolisku ninkan inta aysan boolisku soo aadinba horey ayaaba looga soo sheegaya oo gurigiisa iyo inta u dhowba intuu sii nadiifiyo ayaa si kasta haddii loo baaro aan in yar oo daraagisa laga soo saari karin iyo xitaa wax cadaymo ah. Booliskii waa u waalay ninkan, si walbay u dabagaleen, si walbay u baareen, waxba waa ay ka soo saari waayeen. Muddo 7 sano ah ayay ninkan boolisku dabagal ku hayeen, waana ay waayeen cadaymo ku filan oo ay ku maxkamaday karaan. Halkan waxaa ka bilaabmaysa sheeko aad u la yaab badan. Madaxii baaritaanada ee booliiska Kuwait ayaa shafka garaacday oo dhahay aniga ayaa fashilinaya ninkan keligay oo cadaymo ku filan ka keenaya. Madaxii baaritaanadu markaan shaqadiisa ayuu bilowday. Wuxuu soo aaday gurigii Abu Xubayl. Wuxuu ogaaday inuu jiro nin Afghanistan u dhashay oo Abu Xubayl baabuurta u dhaqa. Sargaalkan wuxuu soo daystay garka Afgaaniyiinta oo kale, sidoo kale dharkoodii oo kale ayuu soo xirtay. يعني aad isugu soo ekeysiyay qof ajnabi ah oo Afghanistan ah. Ninka Afghanistanka ah ee baabuurta dhaqayay ayuu yimid, wuxuuna ku dhahay anigu booliis ayaan ahay, halkaas ka bax, dibna uma soo laaba kartid. Afgaanigii wuu iska baxay, sargaalkiina shaqadii Afgaaniga ayuu bilaabay, baabuurta inuu tirtiro ayuu bilaabay. Maalintii koobaad ayuu tirtiray, maalintii labaad ayuu tirtiray, maalintii saddexaad asagoo sargaalkii tirtiraya baabuurkiisii ayuu guriga ka soo degay. Abu Xubayl waa uu u yimid, waxauna ku dhahay adiga kuma tahay aw ninkii baabuurtiidan tirtirayay. Sargaalkan wuxuu matalay ninkii Afgaaniga ahaa, Carabi uu jajabsanaya isagoo ku hadlaya ayuu dhahay wallaahi aniga Afgaani miskiin ah ayaan ahay, saaxiibkayna safar ayuu aaday, waxaana igula ballamay inaan baabuurta sii tirtiro oo lacagta sii qaato inta uu maqan yahay. Abu Xubayl isma uusan waalin, ninkii wax yar waa uu ka shakiyay, laakiin wuxuu go'aansaday inuu dabagal ku sameeyo, shaqadiisana uu u dhaafo. Sargaalkan baabuurka ma korkoro, isla weyne iyo waxaas ma jirto. Baabuurkiisa ayuu tartiib u nadiifiyaa, kadibna baaskiil ayuu qaataa oo gurigiisii ku aadaa. Subaxina aroor hore ayuu baaskiilkaas ku yimaadaa si uu baabuurta u nadiifiyo. Abu Xubayl si uu u tijaabiyo ninkan baabuurka u dhaqa inuu yahay nin daacad ah oo shaqadiisa ku eg, iyo inuu yahay nin asaga sirka gudbinaya oo loo soo diray si uu u kala ogaado. Habeenkii markuu hoyaadayay ayuu lacag yar gaariga qayb ka mid ah geliyay si uu u ogaado inuu ninkan lacagtan iyo baarbaaro oo uu dabagal ku sameeyo. Sargaalkan madaxa baarista booliiska ahaa haddana iska dhigayay nin baabuurta dhaqa. Afaaraas ma uusan gelin, lacagta wuu arkay, meesheeda ayuuna ku dhaafay, hore ayuu uga sii socdo, shaqadiisa ayuu watay. Maalinkii xigayna Abu Xubayl wuxuu isla gaarigii geliyay xashiishad yar. Xashiishad yar wuxuu ku soo xiray kartoon, kadibna baabuurka qayb ka mid ah ayuu geliyay. Wuxuu fiirinayay inuu ninkan dabagal ku sameeyo ama uu sir uun ka gudbiyo. Laakiin sargaalkan oo ahaa nin aad u caqli iyo maskax badan, ma uusan fiirin, mana uusan furin ee hore ayuu uga sii socday, shaqadiisa ayuu iska sii watay. Abu Xubaylna sida ayuu ku aaminay ninkii, oo wuxuu aaminay inuu yahay nin maskiin ah oo baabuurta u dhaqaya, lacagtiisa ayuuna sii jiray. Asbuuc ayaa la joogay, bil ayaa la joogay. Bishii kale dhexdeeda iyadoo la marayo ayuu maalinkii dambe Abu Xubayl wuxuu rabay inuu iibiyo daraagis aad u fara badan oo ay macaamiishiisu ka soo dalbadeen. Habeenkii ayuu baabuurka wuxuu ka soo buuxiyay daraagis qaybta gadaale ee baabuurka. Baabuurka ayuu habeenkii ku hooyay marka daraagiskii si uu subaxii baabuurka ugu qaado
oo ugu geeyo qoladii laga iibinayay. Sargaalkii baaristuna subaxdii markii uu damcay inuu baabuurka dhaqo ayuu baabuurka qaybtiisa dambe furay. Saa wuxuu ku arkay daraagis aad u fara badan oo baabuurka qaybtiisa dambe ku xiran. Kadibna booliiska ayuu hore ka wacay Abu Xubayl, halka ayaa lagu qabtay. Abu Xubayl markii la qabtay waa la waday, xabsiga ayaa lagu tuuray. 15 sano oo xabsi ah ayaana lagu xukumay. Marka halkan ayay ka bilaabanaysaa qisadeena. Abu Xubayl waxa lagu xiray mid kamida xabsiyada Kuwait ugu adag oo aysan macquul ahayn in laga baxsado. Maalmo yar markii uu Abu Xubayl xirnaa waxa yimid booliis ku qornaa kormeerka xabsiga. waxay imaadeen qaybtii uu Abu Xubayl ku xirnaa ayagoo maxaabiistii mid u fiirinaya ayay waxay imaadeen qolkii ama meeshii yareed ee uu ku xirnaa Abu Xubayl. isla markaasna waxay arkeen meeshii oo maran Abu Xubayl maba joogo. ninkii masiibada ahaa ee booliiska wareeriyay booliiska waalay maba jooga, waa u baxsaday. isla markaas booliisku waxay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan dhammaan dadkii xabsiga ka shaqaynayay, saraakiisha xabsiga ka shaqaynaysay iyo xitaa qoladii nadaafadda. baaritaan ayaa lagu bilaabay, laakiin qof lagu tuhumo xitaa waa la waayay. intaas kadib booliisku waxay isticmaaleen tilaabo kale oo maskax ah ayay isticmaaleen booliisku. dhammaan dadkii xabsiga waardiyeynayay iyo saraakiisha xabsigaba akoomadoodii, xisaabihii iyo lacagihii ku dhacay ayaa waxaa lagu bilaabay baaritaan. ayadoo baaritaankii la wado, mid ka mid ah saraakiisha xabsiga ugu sarreysay weliba sargaalkii ku qornaa qaybtii uu Abu Xubayl ku xirnaa ayaa akoonkiisa waxaa la arkay lacag ku dhacday maalintii uu Abu Xubayl baxsaday. lacag aad u fara badan oo gaaraysa 7 milyan oo riyaal oo Sacuudi ah, dollar ahaana u dhiganta 2 milyan oo dollar. sargaalka ayaa la soo qabtay, baaritaan ayaa lagu sameeyay. mid aadan ka soo dhaafay Abu Xubayl markii uu baxsaday kaligiis ma baxsan ee waxaa la fakaday 6 nin oo waaweyn oo ayaguna ahaa ganacsadayaal daraagiska ka ganacsada. sargaalkan wuxuu qirtay inuu Abu Xubayl iyo tiimkiisa lacagtan 2 milyan ah ka qaatay, weliba taliyaha guud ee xabsigaas inuu lacagta kala bar qaatay, asaguna uu lacagta kala bar qaato ay kala qaybsadeen, sidaasna ay raggaas ku sii daayeen. Abu Xubayl markaan gacanta booliiska Kuwait waa uu ka fakaday. markii dabagal lagu sameeyana waxaa la ogaaday inuu ka gudbay xadka Kuwait iyo Iiraan u dhaxeeya. Abu Xubaylna uu u baxsaday dhankaas iyo dalka Iiraan. sidoo kale waxaa la ogaaday Iiraan inay ahayd halkii uu ninkan daraagiska ka soo dhoofi jiray, daraagiska uu ka iibi jiray guud ahaan wadamada khaliijka, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Kuwait. dhammaan wadamada khaliijka oo dhan daraagiska uu ninkan keeni jiray asal inay u ahayd oo uu ka soo dhoofi jiray dalka Iiraan. ugu dambeynna Iiraan ayuu u baxsaday ninkan. Iiraan markuu tagay ganacsigiisa ayuu meeshii ka bilaabay, ganacsigiisa ayuu sii laba jibaaray. daraagiskii uu wadamada khaliijka u soo dhoofi jirayna waa uu laba jibaaray ninkan. ugu dambeyn 2004 ayaa dalka Imaaraadka gaar ahaan magaalada Dubai waxaa lagu qabtay daraagis aad u fara badan iyo rag 3 ah oo daraagiskaas waday. daraagis aad u fara badan oo magaalada Kuwait oo dhan dadka ku nool hadii ay isticmaalaan dhammaantood ay wada daada lahaayeen. dabagal dheer iyo baaritaano lagu sameeyay daraagiskan waxaa la ogaaday inuu Abu Xubayl ku sugan yahay Imaaraad. mar kale waxaa gacanta ku dhigeen Abu Xubayl booliiskii Imaaraadka, waxayna ku xukumeen 13 sano oo xabsi ah. laakiin waa uu ka baxsan waayay xabsiyadii Imaaraadka. 13 sanana Imaaraadka waa uu ku dhamaystay. sanadii 2017 ayuu xabsigiisii Imaaraadka dhamaystay. marka uu dhamaystay xabsigiisii Imaaraadku ninkan ma aysan sii dayn maadaama uu u dhashay Kuwait. waxay gacanta u geliyeen booliiskii dalka Kuwait. booliiska Kuwait markay gacanta ku dhigeen waxay ku xukumeen 15 sano oo xabsi ah iyo 10 sano oo dheeri ah oo ah inuu xabsiga ka fakaday. total waxa lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah.